waxa uu afka u gelinayaa waa mas, waxa uu la ciyaarayaa uu mar walba ka agdhow yahayna waa mas, waxa uu jidhkiisa ku shubayaa in ka badan 100 masas. haddii aad horey uga baqi jirtay masaska aan agtoodana lagu tusi jirin, maanta waxaan kuu wadaa sheeko cajiiba. nin u dhaqanaya masaska sida aynu bisada inagu u dhaqanno. runtii ninkan aad ayaa loola yaabay, adna waa la yaabi doontaaye ila joogi la dhammaadka kuna soo dhawow muuqaalkeen ammaanta. ninka waxaa lagu magacaabi jiray Kalajasiis. waxa uu ku nool yahay qaaradda cajabta, micnaha qaaradda Afrika ee wax walba aad ku arkaysid. haddaba ninkan waxa uu la noolaa hooyadii iyo walaalihii. ninkan masaskan waxa uu ku dhex jiray koritaankooga iyo la noolaashahooga muddo ka badan 32 sannadood. intaasunbuu dhex taagnaa masas. haddaba ninkani waxa uu mar walba aad u xanaanayn jiray, uu aadna ula ciyaari jiray masaska noocyadooda kala duwan, kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar. kuwan yaryarna way ku dul dhasheen, oo maska weyn uu haystay ayaa waxa uu dhalay kuwan yaryar. haddaba ninkan waxa uu ka go'an yahay tuulada uu degan yahay, waayo dadka tuuladu aad ayay uga baqayaan ninkan, waayo waxa uu ku ciyaarayaa waa khatar, laakiin isaga agtiisa waxay ka tahay bisad amba yaayuur waxa la yidhaahdo. aad ayay uga baqaan dadka tuulada jooga, umana soo dhowaadaan. ninkan ayaa waxa la noolaa masaskana kobceen masaskaasuu aad tiradooda u badatay, kuna nool gurigiisa god yaro dhinaca ka xiga oo xagga dambe uu uga diyaariyay ayay kula nool yihiin masaskani. halkaasuu ku xanaaneeyaa, kuna quudiyo, cuntooyinkoogana ku siiya. haddaba qole wararyaala oo sheekada soo tabiyey ayaa barti ku booqday, waraysiga quruxda badanna ka soo diyaariyey. ninkanna waxa uu isku beddelay cawaan sida uu u dhex taagnaa masaska uu dadkii tuuladan uu go'doonka ahaa. wariyaashii markay u tageen waxa uu ku soo ariyaday maski, ilaa wariyaashii markii dambe ay u sharaxeen waxay u socdaan iyo ujeedkiisa. ugu dambayna ka ogolaaday inuu waraysigan siiyo, sidaan warbaahinta uu ku soo galo platformka social mediaha uu saa ku soo galo. ninkan ayaa dadku intooda ugu badan waxay ku tilmaamayeen saaxir iyo waxyaabo inuu la shaqaysto jimanka, waayo ninkani waxaan qayrul xadhayn ayaa uu samaynayaa. sunta maska ka baqi maayo. marar xataa lagu weydiiyey masasku markay cadhoodaan markuu dhaawacaan, waxau idhi xataa hadday cadhoodaan wax dhaawaca ima soo gaadhsiiyaan. ninkan ayaa aad loola yaabay, dadka tuuladii joogana aad ula yaabeen. mar uu isiraado xidhiidh sameena, hablihii xidhiidhka uu ka dalbanayna ay runtii aad uga baqayaan, ila nin baa la dhaqanaya idina dooni maysee. ninkan ayaa haddaba sheekadiisa markii ay sidaas u qabsatay tuuladii iyo dadkii meesha ku dhowaa ayaa waxaa la weydiiyey maxaa awoodan intan leeg ku siiyey, oo micnaha dadkan kale ay uga baqayaan maska, adigiina aadan baqdin iska daayay, aadan xataa yar nuuxsanayn. sida uu sheegay wuxuu yidhi waxaan ahay qof saaxira oo micnaha awoodan bili-aadanka aan dheer ahayna ka bartay awooyaashii, oo micnaha awooyaashii ayuu ka dhaxlay arrintan masaska. sidaas ayuuna ku noqday saaxir oo kuna sheegtaa, una leeyahay awoodo badan tusi kare. xataa video kale ay ka soo duubeen inamadan wariyaashu waxa uu ku tusayey in uu muxuu ahaa warqadan halkan taala ee ololeysa xataa ayna biyo baqtiinayn, micnaha uu sheegay in wax sixiro kale oo isticmaalayo leeyahay awood ma leh inay baqtiiso. markaan baqti yidhaahdo bay baqtiyeysaa. saasay kusoo tabinayaan. wiilka sheekadiisu inahaasaan aan kusoo gabagabayn lahaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.